maalintii prime minister Roble madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noo magacaabay dabayshii inagu kacday qalqalkii inagu kacay duufaankii inagu galay ayaa ilaa imika haysta oo victimkii sanal dhibaatadii sanale magacaabidii Roble waxay noo keentay khalkhal abni iyo khalkhalkii qaranka ayay keentay isla markiiba uu ordo ugu rakiniyaatu dharkiya nagishada u soo xidhay waa nagi oga يعني devaluation halkii ugu hooseysay buu qarankii Soomaaliyeed geeyay waxa ku xigay ururka NISA ee security-ga Soomaaliyeed oo ah ururka tobnaad ee Afrika waa hadda Afrikada dhan waa ururka tobnaad ee ugu awoodda badan ayuu dabca inuu baabi'iyo uu markiiba ku dhacay waad ogeedeen wixii ka dhacay madaxweynuhu dagaalkii uu la galay waad ogeedeen si uu baabi'iyo NISA waxa la wixii cadowgeenu وديدنا أيها الله دري سجى إنه قبضه وقرن كأنه كدوميو سجى برايم من مجا برايم مستر شجناي وادو جيدين وحقوق عاي قرن كبان كذي بقول عوض جيدين خاصة دي الدولة دا يورد وجب صدق وإلى هاي كبد بعدي دبعتدي سميرين وقدامين واكيلها هو حي فرماجة يا في جنبي يعني أو حيالها هو يا بدن دولة war prime minister baad ahayd adigu Farmaajo waa president yaa ku afgambeeyay adiga kii ku magacaabay bana ku eriyay hadii qof sharaf ka mudan yahay karaamo ka helayo Farmaajo ka heli lahaa isaga ku magacaabay oo Soomaaliya oo dhanba ka soo xushay oo ka dhigay prime minister kii qaranka dadkii kale iska dhaafay gacantii ku magacaawday ayaad qaniintay oo laga furfuri kalaay oo qaniinsan tahay والله مقعابات والله انقلابات هذاك الله صفر يسته مدحوين هذا السلق انقلابي ما برسنا ما يدقوا برايم مينستر باعدكم صوت دوره تمجروا قال انك برايم مدحويني محمد عبد الله فرماجو ايا برايم مينستر كادق اوكسيا ود كيكو مقعابه بين قنيسن تahay oo laga furfur laaya qoyskaagii hoosay waxaad caaqal tahay 6 nin oo isku reertiin baad soo kacaysatay markaas sawirkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qarana waa qaranka weeyaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa calanka Soomaaliyeed ayaa jajabiseen oo ku boodboodeen oo burburiseen wax kale iska dhaaf institutionkii kale iska dhaq sawirkiisii baad jajabiseen oo aqligii niba idin siina sawirkiisa jajabisaan idinku qabiila qaran Soomaaliyeed istaantiisii weeyii maxaa ciidanka iyo talada dalka ku daba dhigood u jiidanaysa Soomaali sharaf inay ka sugan wada ragtaa kii ku magacaabay aad ka laadlaada oo qaniisan tahay gacantii wax ku siisay ayaad qaniisan tahay meeshii ugu dareed maanta ayaa timid waxa tiri ciidamada beledweynaha tagay hal soo celiyo adiga kulama yaabani adiga waa qof la iibsan karaatay qof baahan waa la iibsadaa qof baahani talana male aqoonna male aqlina male cilmina male waa lacagun haduu qof baahan yahay oo lacagu baahan yahay waa materialist baa la yiraahdaa dawladnimadii iyo qarankii wixii lagu dhiyay waa ka maqan mental disorder baa tahay maskaxdaadu ma shaqaynayso mas'uul baa laga dhigay ummadda Soomaaliyeed mas'uul laga dhigay markaas ciidamadii beledweynaha jooga hal soo celiyo wasiirada intaas jiray wasiirada muuna ku jiran laysa minkum rajul rashid warnin qori muuna idinku jirin oo oranay war beledweyn meena Soomaaliya ahayn maxaa se beledweyn kaaga soo muuqdood u aragtay maxaa qaldan soo ciidamada iyo qaranka Soomaaliyeed ciidamadu meel walba way joogaan maxaa ciidamada ku daba dhigay amniga qaranka waad ku dagaalanto waxa tiri amniga qaranka lagu wareejiyo ma waxa aad doonaysi ma inaad beledweyn dagaal ku qaada doonaysi haddii ciidanka qaranka Soomaaliyeed beledweyn la geeyay maxaa qaldan ciidamada qaranku meel walba way joogaan jowhar bay joogaan muqdisho joogaan kismaayo joogaan baydhabo joogaan wadanka dhan bay joogaan maxaa beledweyn maxaa qaldan halkan maxaa yaala maxaa u diidan tahay beledweyn nin qori miyaa la idinka waayay wasiiradu war beledweyn maxaa qaldamay meena dhul Soomaaliyeed ahayn beledweyn halkee ku taala beledweyn ma dal kale ku taala maxay tahay waxaan la ordaysaan madaxweyne prime minister Roble qabyaalad baa ku waash halka ninkaas doorkaaga mid baa fadhiya reerkiina oo la ciidamada qaranku waa Malaysia waa ninkaas doorkaagu fadhiya halka kugu xigta oo si shir jarayd haya
mid kale xagan kale bidixdu fadhiya uu leeyahay ciidamada ha laga qaado darajada oo askar ha lagu soo celiyo maxaa askarta idin daba dhigay dalku wuxuu qaran ku yahay dawlad ku yahay sharaf ku leeyahay karaamad ku leeyahay uu haybad ku leeyahay oo looga baqayo waa ciidanka maxaa ciidanka idin daba dhigay maxaa sabab weyn yaal miyaan laga gudbin hababkii qabiiliyadii wixii la isku haysan jiray qabiiladu sida isku xigaan bay isku xoqaan geedku laamba laanta ku xigta ayaa xoqda oo reeruhu markay jaarka yihiin dhibaatadoodu ma yara marka arrinkaagu arrin kale u muuqda qabiil buu u muuqdaa beledweyn waa dhul Soomaaliyeed waana la geynayaa ciidanka Soomaaliyeed iyagaa loo qoray qarankay ka mid yihiin dawladday ka mid yihiin way u baahan yihiin ciidan waa la geyn maxay tahay sababta alla soo celiyaa leedahay annagu waxa ma garanayno wax naga hooseeya arrinkaasi waa arrin loo kala arrin national ma aha qarannimo ma aha waa arrin loo kala meelo bogsaday baad xoqaysaa baan u malaynaya oo anagu garanay meelo ay Soomaali ka bogsatay baan wali ka bogsan colaad hoose baa ku haysa qabiil ayaa ku haysa colaad weeye meel baad xoqaysaa anagu aanan garanay oo lagu xoqaado baantay sababta ciidanka beledweyn la geeyay ee qaranka ilaalinaya ee wadooyinka u furaya ee dadka wax la taraya hal la soo celiyo waan garan weynaa anagu waxaad uga jeedo Soomaali ma garanayso laakiin waa siyaasad qaawan oo mental disorder aqliga odhanaya iyo kuwa kale kula shaqeynaya adiga ee wasiirada fadhiisto beledweyn ciidamada laga soo celiyay gaar what does mean that maxay tahay macnaheedu war maxaa tiin idinku maxaa tiin kuwa wasiirada lagu sheegayo maqashin la soo ruriyo meesha soo fadhiisiyadaydeen maxaad haydeen nin aqli iyo aqoon leedin kuma jiro oo oran kara soo loo soo celinaya ciidankan waddanka dhan baa ciidanka la geenaya qaranka waddanka dhan bay ciidan u yihiin difaacaya niman arrimo loo kala wata ayaa raba inay idinku fuliyaan maxaa qaldan ciidankan jaranka laga qaado saraakiisha la bedelo maxaa jira jarnaarado waa hadii loo dhibay ciidanka ma jaranka idin muuqda inaan yar oo jaranaara ayaa jaranaaradii kala la shirigaya waa meel ka dhacay kuleeyid war anaga isaga jarano odawa isaga lagu aaminay ciidanka lagu aaminay iyo qaranka maxaa idin ka qaldan wadada ordaysan war waxaan Soomaali way ka gudubtay waxaan waa wixii 30 sanadood la isku haystay qabiyaaladan aad kula soo noqoteen mid kale ka daroon halka hortiisa fadhiya inaga soo kalbaab ku fadhiya prime minister ku wuxuu yiri idaacadu la horimanaya war idaacada Soomaaliyeed hal la horiman idaacad sameystay idinku aad leedihiin family radio sameystay idaacada leedihiin oo qabiilada ka fidisaan idaacadii qaranka ma aha waxana wax kale mid ba halkan fadhiya alqabiyaala la yiraahdo oo wuxuu ka shaqeynaya inaan garanay warqad u sid oo prime minister Robla yiri buu kuleeyay ruuxan waa qabyaaladii waxad waa la idin arkayaan waddanka doorasho socdaa doorasho geebaa lagu yiri doorashadana kuraastii aad iibsanaysaa nin baa habaatay kuraastii waqooyiga ayaad iibsanaysaa oo kursi walba lacag baad ku bedelanaysaa sida qaranka lagu aaminay garan maayo laakiin waa qalad ka dhacay madaxweynaha way waxa dhibaatadeedii Soomaaliland dhibaataysatay waa qalad madaxweynuhu sameeyay waxa Soomaali dhibaatada inta lagu geystay iminkana duway baa tagtay ma toobaad u soo xidhaysaa imaaraadki ma toobaad u sidaaya kalsoomo lacag baad ka soo qaadaysaa nin baahan baad tahay maxamediidu qof baahane waa lagu soo iibsanaya lacag baad dalka keenaysaa saraakiisha iyo ciidamada iyo dawladda Soomaaliyeed iyo amniga war ninkaas markuu soo noqday naga ilaaliya wuxuu keenaya garan mayne masiibo xambaarsan yahay waa masiibo qaranka Soomaaliyeed loo soo diray anigu inaan ka badbaadayno malayn maayo ilaahay naga badbaadiyo masiibo qaranka loo soo diray dalkeena loo soo diray way masiibo cadow kasta oo Soomaaliyeed noo soo adeegsanay way oo dalkan inuu burburiyo raba imikana imaaraadkii baa u yeedhay oo Yaman ay walaalayihiin baabiiyay oo dhulka galiyay oo asfala saafiliin ka dhigay kuwii baa u yeedhay lacag bay dawladdu soo dhibayeen sun waxay u soo dhibayeen anagu garan mayno inaga ilaaliyo naga baara iskaan ku sameeyay markuu yimaado naga qabto wuxuu war foojignaada vigilant hada ninkan waa nin cadow ku qaranimada Soomaaliyeed waa caaqil reer weeyaan ninkan waad arkaysaan arinkii beledweyne wadun muuqda waxa meesha ka dhacay oo ciidamada la soo celiyo waa wax kale
jaranaarka ciidanka waxaanu ku haystaa oo wax kale oo inaan anagu garanayn arrimo kale u xoqaya anagu aanaan garanayn waa inaan ka digtoonaana doorashadii lagu aaminayna 20 baa cishaaba dhacdayba 20 baa hadhe xagee loo socdaa anigu waxay ila tahay in baarlamaanka loo yeedhi doono sidaas ila muuqataa oo ninkan baahanna meesha laga saari doono ila muuqataa inay doorasho dhacayso maleen maayo aad baan idin salaamaya